boqor cismaan oo maanta kula hadlayay warbaahinta magaalada Hargeysa ayaa ka jawaabay hadal ka soo yeedhay gudoomiyaha baarlamaanka ahna musharaxa tagada madaxweynaha xusbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Cirro inaanu hayn dagaalkii 94kii Soomaaliland ku habsaday iyo taariikhda guud ahaan Soomaaliland intay jirtay maraaxilkii kala duwanaa uu dalku soo maray boqor cismaan oo arintaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yiri sida tan والله ما قرأت هذين هم قرية هذا كله فروض هاي نطلع فريستا أنا ركاي فرمات شوالة وأنا وضع شرعي ما ملك حسب كل وطني هذا كله فروض هاي الحمر قير الله فريستا وأذ حكامياش صوب حياة كان ريت كا حدث هذا كله فروض هاي أنا كوين لا عرست وحكون تريا أنا هو حقوق البان حرب الأهلي قد كشف كين حقوق البان حلو قد عيبانه قيب بانكها lama qari karo waan si qoomamaynaya inaanu qayb ka noqonay iyo inaanu qaska ka qayb qaadanay waa qoomamaynana niman qoomaninayna kuma jiro soo hadal qaadkiisu si gaar ah noo dhibay anigu gaari tignikada dawladda waa la garanaya burcaan ku dhaawacmay berberaan ku dhaawacmay Hargeysa laba goor ku dhaawacmay dhinaca kana sidaas laga baahay maxaad u soo ogaan weyday hogaamiyaashii dagaalka hogaamiyay agtaada fadhiya maxaad u sheegay magacyadooda maxaad roolka ka qaateen qaybta ku lahaayeen oo aad magac dhabi weey maxaad xabaalaha dhinaca kale ay u soo arki weey dhinac walba lagu dhimanay laakiin ayaan darro Soomaaliland soo martay oo laakiin aqli lagaga badbaaday oo laga bogsaday weey waxay muujinaysaa sida quusta uga joogtay iyo qaybinta reer Soomaaliland shacbigeeda kala qaybinaysaa siyaasad xumaantaada iyo hogaamin xumaantaada muujinaysaa waa arkaysaan xisbiga wadani Soomaaliland wuxuu ka wada qaybin anigu wuxuu ku helay la garan maayo qaybin buu ka wada wuxuu ka wada cunfi iyo kala sooc iyo qabaalad waana arrin farxmaan si dara weyn xisbi qaran oo aan cid walba inay ku jirto ay ahayd oo dadka reer Soomaaliland ay ka wada muuqdaan ay ahayd oo maanta halku dabada galiya arkaysa waa ayaan darradii ugu xumaaday maxaa muuse loogu dhalalaya yaan lahayn wasiir daakhili labada dawladood ay kala hogaaminay Cabdiraxmaan Axmed Cali iyo Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal ee khilaafku hal ka bilaabmay xaqeen miyaan wasiir daakhili jiray ma wasiirka daakhiliga Malaysia kii mareelolkii sheegtay ana ku sheegi doonay taxanaan ku soo saarayaa wallahi ragna hiiro noqdo hadda sheegaya qaarna wallahi blacklist lagu dari doono sida wuxuu dhacay waxa ku soo gabagabeynaya war Soomaaliland waxay u baahan tahay wax isku wada midnimo ay u baahan tahay cunfiga hore iyo cuqdada hore iyo naxliga in la bogsiyo u baahan tahay